isku soo noqod iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal duhur wanaagsan ayaan idin leeyahay waxaan rajaynayaa inaad dhammaantiin caafimaad qabtaan aan fiican tihiin waxaan maanta idin haynaa qisada fanaanka caanka ah ee Greenby sidoo kale magaciisa dhabta uu yahay Alfanaan Musa iyo sidoo kale Adexio oo ah xaaskiisa marka aad joogto Soomaaliya xajmi weynaanta labada qof waxa loo arkaa waxyaalo hanan haboonin balse adduunka kale marka aad joogto wax iska caadiyata bedelkeeda Adexio oo ah xaaska oo qabo Alfanaan Greenby amba Dolly ay Soomaalidu taqaano ayaa ahaa laba qof oo markaad aragto si weyn u kala xajmi weyn xataa dadku qaar waxay moodaan inay tahay wiil iyo hooyadiisa su'aal ahaan markaad aragto sida ay gacanta u qabsanayso isa ay u daadahaynayso intaba balse Alfanaan Dolly oo ah nin da'diisa iyo sida wajigiisa ka arkaysaanba nin da'aan han yareyn balse waqti xaadirkan u muuqda wiil yar oo dhowr sano jir camal حتى 10 سنة أنا قارن أيا إسكورسدي سنة كتجي إلى بدأ كن يو لبعتنكي بس أرنتو ما ينقول كودا أي واحد نقطي سدا إلى بدأ قف أكل حد مويهين يسدا إسكورسين سكون قابلين أي هذا اللي ندرسه تهبدل كده وحي هذا الحين وين كدلتي مركي أي بقى إذا فيسبوك صورتي ور أيان أولا هي حاجة جرامبي تاس وين نقطي متى سومالي بدن كفالودان مسنا واحد إسكويديان بس لما أوجين حجوينانتا iyo qofta inta la eeg inuu u hayo ama teed iyo xeelo aw isagu waqti xaadirkan ku wajihi karo Alfanaan Greenby aba Fanaan Musa iyo sidoo kale xaaskiisa Adexio ayaa noqday laba qof oo si weyn baraha bulshada caan uga ah kadib markii ay iskala soo muuqdeen aqalkolkoodii ama goobtii fagaaraha arooskooda sidoo kale Alfanaan Greenby waxa xusad mudan inuu yahay qof dalkiisa caanka ah taageerayaal badan ku leh daafaha dunida sidoo kale iyaduna ka soo jeeda dalka gene waxay sheegtay inay ninkan jeceshahay misana ha ku jeclaato lacag amba ha ku jeclaato waxyaalo kale hay jeceshahay balse ugu dambeyn waxa dhacay arooskooda kaas oo hay dad badan aad soo dhaweeyeen ugu dambeyntiina waxay boggeeda Facebook soo qortay uur ayaan u leeyahay xaajigayga balse kulli Soomaalida waa taqaanino hadii erayal maqasho 10 eray ay u qaadaa dad badan ayaa yiri Alfanaan Dolly ay xaaskiisa uur yeelatay dadka qaar ayaa si qaldan uga soo falceliyay balse waxay maanta noqotay mid ay ku taamay waqti badan Alfanaan Dolly waxayna ku tusaysaa inaad qof kasta oo tahay had hamigaaga ka mid dhalin karto adigaaga daawanaya muuqaalkana hadaa isleedahay ma tihid qofkii loo baahnaa ama guursan lahaa qof caynkan ah oo ka xajmi weyn ama ka qurux badan ama ka hanti badan waa beentas hadaa isleedahay talentigaaga ay ku harabaya waxaan ku dhacayna waa beentas saaxiib muuqaalka leekare